الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان أمد الصوماليات مسلمين جارهان أمد الصوماليات وحلي رمضان مبارك. أنا وكل الله مجا عجود جاليد الصومالي ذا إسفون جاليد ذا إزولي نواحي ذا وحا مانتا أنا سوني من حرونت جاليد ذا إزولو كتالا إن أنا مانتا كودا أفرون دمان أمد الصوماليات كنا نواحي إزولي نواحي ذا إني سيد عادد جاليد سنة كستبا أي قبطه maalmaha sabtiga inay ku wada afraan xarunta jaaliyadda waxaan leeyahay horta bishaaro oo bisha ramadaan oo si ilaahay noogu dhaliya anagoo caafimaad qabna ummadda soomaaliyeedna in ilaahay ugu dambi dhaafo annagana maaragtay ilaahay noogu naxariisto waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahadceliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kasoo qayb gashay afurkan qiimaha badan ee aad iyo aadka loo soo diyaariyey waxaana marka rabaa horey inaan u mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee soo abaabulay hadday noqoto dhalinyarada jaaliyadda soomaalida ee mar kastaba u taagan inay ummadooda soomaaliyeed ee afurka sida wanaagsan u qaabilaan iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dadka dumarka iyo raggaba leh ee guryahoodii kusoo kariyay raashinkan aad u qurux badan una macaan soo diyaariyay waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad ka siiyo dadaalka aad samayseen waana bil ramadaan oo maaragtay sida aad la socotaan waa ilaahay marka isugu naxariistan yiri waxayna tahay annaga maadaama aan joogno waddan qurba ah khaasatan waddanka Netherland alxamdulillah mar hadiiba aan jaaliyad leenahay in soo imaanayna meel aan ku wada afurno aan leenahay gabdhaheennii iyo wiilasheennina ay ka qayb qaadanayaan iyadana waa sharaf weyn walaalayaal waxaan idin leeyahay aan ka faa'iidaysano bisha ramadaan ilaahay inuu noogu dambi dhaafana aan weydiisano inteennii dhimatay ramadaankii aad soo gaari weysayna waxaan leenahay ilaahay waxaan ka codsanaynaa in maarad ilaahay ka baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo inta xanuunsanna ilaahay inuu caafiyo dhammaan waxaanan leeyahay waddankeena ilaahay nooga dhigo barwaaqo ah ummadda soomaaliyeed isku soo dhex dhigo nabadgelyo iyo maaragtay sacaysi waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana inay isku tanaasuso iscafiso ummadda soomaaliyeed isku naxariisto dhammaan dadkeenaan waddanka ku nool ee xaaladaha adag haystana waxaan leenahay in ilaahay u gargaaro dhammaantood waxaanan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ka qayb qaadata afurkan iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin anoo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee Netherland gaar ahaana jaaliyadda Iswooreyna waxay gudoomiyahooda ahna Abdulqaadir Cali Nuune waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa in aan mataqaanaa aan idinkaga mahad celinaa sida wanaagsan aad u taagan tihiin inaa ummaddiina soomaaliyeed aad isku xiriirisaan waxaan leenahay si aad la socotaan oo jaaliyadda ay diyaarisaa dugsiyo qur'aan waxa ay leedahay afur waxa ay leedahay in dadkooda xanuunsan ay booqato waxa ay samaysaa xarumo dadka dhibaataysan ay ku kaalmayso iyo in maaragtay isku wada waraysto oo isugu yimaado inteennan wanaagsan ilaahay wax siiyana ay sidaas isaga wada qayb qaataan xoogooda qof ay sadaqaysta iyo qof maalkiisa sadaqaysta ay isugu jiraan dhammaan waxaan leenahay inaan sii wadno ilaahayna waxaan ka baryaynaa ramadaanka si wanaagsan inuu noogu dhammeeyo ramadaanka kale ee soo socda ilaahay nagu gaarsiiyo ciidana waxaan leenahay ciid wanaagsan ilaahay nooga dhigo waxaan halka rabaa inooga mahad celiyo wariyaheenna Bashiir Jilaal Barrow ee markasta u taagan inuu maaragtay baahiyo ama gaarsiiyo dadka guryaha jooga inay arkaan afurkii wanaagsanaa ee lagu qabtay magaalada Iswoola isagana waxaan leenahay jazaakallah ilaahay ka abaalmariyo waxaan rajaynaynaa in afurkan uu noo noqdo afur aad iyo aad wanaagsan waana mahadsantihiin dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed asalaamu calaykum